السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وناكسن دمان مد الصوماليين من البتشوكتان soo dhawaada dhammaantiin aad baan idin soo wada dhaweynayaa insha Allah siina shargareeya intiina hadda soo galeysaan idinka codsanaya inaad sii shargareysaan haddii la yiraahdo bal waxii soo qora waxba uma jeedo cabdikariin aad baan kusoo dhaweynayaa walaal ramadaan kariim aad iyo aad waa la maqlayaa marka aad baan idin soo dhaweynayaa dhammaan intiina ku jirta waxaan idinka codsanaya inaad sii shargareysaan si aan hore ugu bilowno haddii la yiraahdo cabdi sakin aad baan kusoo dhaweynayaa walaal ibraahim aad iyo aad ramadaan kariim sidoo kale walaal soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada aamina xasan walaal waan ka qaaday salaanta sidoo kale waan ku salaamayaa umar ruweyda aad baan walaal macaan ku salaamayaa ramadaan mubaarak walaal cabdi garaad mahad aad baan kusoo dhaweynayaa kamaal asad maxamed aad baan walaal kusoo dhaweynayaa adigana subax wanaagsan oo wacan inta waagu u bariyay aad baan idin salaamayaa habeen wanaagsan inta habeenka u tahay sidoo kale daljire وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا عبد الرحمن المهدي أدم ولا الكوسة دوينيا حليمة شيخ أدم كوسة دوينيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاطمة قاسم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدم كوسة دوينيا سهر قاس أدم كوسة دوينيا ولال daahir aad baan walaal macaan ku salaamaya aadna waan kusoo dhaweynayaa darwiish aad baan kusoo dhaweynayaa aad baan walaalkaaga qaaday darwiish soomaalida america aad baan iyo aad good morning walaal soomaalida america aad baan idin soo dhaweynayaa salaan sare qaranka cabdikariin maxamed galhareeri aad baan walaal kusoo dhaweynayaa dhammaan asxaabta ku jirta iyo inta soo geli doonta cabdikariin walaalo aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaal ibraahim yarow baafi aad baan walaal macaan ku salaamaya aadna waan kusoo dhaweynaya salaantan waa kaa qaaday dhammaan asxaabta ku jirta aad iyo aad baan salaanta dhammaantiin idinka wada qaaday aadna waan idin soo wada dhaweynayaa qaadaysaa walaal harti dheh آسيا أدنى ولا لكوسو دوينيا أدنى وكو سلامية عبد السمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنو سي شرقرية برنامجك وحن ربينا هرا وبلابو رمضان وناكسن وانصومنا هاي بيا إما أجيالان ما طرنا هدا اسكد الظلمة موقتها وانهراضيا ساعدها نصومي أنا أدو ديريهين مركا وحن ربا برنامجكنا دخصو بلابو دخسنا soo gabagabeeyay waqti badan inaan lumiyo hadal kulmiyo ama doonayo CCM Koray aad baan walaal salaanta kaaga qaaday aadna waan ku soo dhaweynayaa Axmed Suldaan wa calaykum salaam garaad mahad aad baan ku soo dhaweynayaa walaal سعيد شعبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد سلطان وعليكم السلام محمد ابن حسين دمانتين aad baan idin soo wada dhaweynaya aadna salaanta waan idinka wada qaadaya axmed yaasiin sidoo kale waan kusoo dhaweynaya cabdilaahi aad baan walaal kaaga qaaday salaanta sidoo kale waan ku salaamaya maxamuud barre galac soo dhawo walaal aad baan ku salaamaya axmed yaasiin walaal waa mahadsan tahay soomaali baan ku faana guuleyso walaal aad baad u mahadsan tahay ilaahay ku guuleeya adigana هم كصحيح الله يعاون وقف كيسو قرية بعد هاي حاجة كل قادسة أوكي سومالي أدم ولا لا سكي ذهبي ولا الأدبان ولا سلامتك حاجة قادسة ذكر نوك السلامية محمود بري أدبان ولا لكو السلامية محمد حسين سدوك الأدبان كو السلامية لما أنتي نعيمة دي أدبان ولا معن كو سدوين يا دهوري aadban faadimo axmed kaaga qaada walaal aadna waan kuu soo dhaweynayaa aad baan walaal adigana kuu soo dhaweynayaa sidoo kale
MC Korea sidoo kale walaal aad baan idinku xiisay bisha Ramadaan ma rabin horta inaan soo galo live waanigi maalintii Ramadaan bilaabanaysay baan u maleynayaa baan soo galay oo waxaan idin lahaa inoo bilow dadku waa badan yahay waayahay darwiish walaal waan bilaabayaa mana doonayo xitaa waliba inaan kusii dheeraado marka waxyar baan rabaa horta inaan ka afeefto hadda kahor waxaan idinku yidhi inta Ramadaanka ku jiro dee waa la cibaadaysanaya waa la tasbiixsanaya waa bil Ramadaan oo barakaysan baa lagu jiraa laakiinse dad inkaaran baa naga hor istaagay oo dee dhiig daadanaya dadkii oo maxaan ku idhahdaa la isku xasuuqayo kama aamusi kartid maxaabad cibaadaysataa dad baa aakhira loo dirayaa marka lagamaba tasbiixsan karo dadka maanta jooga aad iyo aad cabdirasaaq walaal aad iyo aad sidoo kale adigana jinni boqor aad baan walaala kuu salaamayaa dad aad iyo aad u fara badan oo waqti hore suuka ay dambeysay baan ujeedaa Ramadaan kariim wilaal walaal soo dhawow axmed darwiish aad iyo aad baan walaal kusoo dhaweynaya war maanta dad hore unba ii soo gelaya ilaahay idin barakay dhammaantiin aad baan idin soo wada dhaweynaya sii sheergareeya barnaamijka waan bilaabaya hadduu ilaah yidhaahdo yaasmiin maxamed soo qabay tiri cabdiqaadir xasan walaal aad baan kusoo dhaweynayaa duuliya aad iyo aad baan kusoo dhaweynayaa cabdirasaaq cali dibaati aad baan kusoo dhaweynayaa Ramadaan wanaagsan waan bilaabi doonaa barnaamijka haddii ilaahay yiraahdo waan bilaabi doonaa horta marka ugu horeysa bishii Ramadaan ayaa lagu jiraa dhammaanteen qof kasta oo kale islaam oo Soomaaliyeed ama qof kasta oo maxaan ku irahdaa ilaahay ka cabsanaya uu sooman yahay maanta xilli kasta ha ku jiro ama waa qof suxuur diyaar garoobay ama waa qof afuraya ama waa qof sooman sideedoo kale qof walba waxay ku xidhan tahay xilliga uu hadda joogo Ramadaan maalintay soo galeysay mar baan soo galay leef waxaan ku yiri bisha Ramadaan dee ilaahay ha laga boqo aan iscafino ha la cibaadeysto ha la tasbiixsado laakiin se xaaladda karaq ka taagan ma aha mid laga aamusnaan karayo xilli walba oo lagu jiro dadkana kolley ma garanayo dhowr qof oo waxaan arkay Facebook qof walba sidoo doonayo uga hadlayo ama social media ku doonaba ha noqdo meelo badan oo wada maxaan ku rahdaa qabyaalad iyo qabiil mooyaan wax wanaag ka hadlayo aanan arag wadaadadii waxaad moodaa iyaga laftirkoodu inaysan ku jirin kaalintoodii loogu talagalay oo maxaan ku rahdaa markii dagaal dhaco ama dad la leynayo dhiig joojinta ugu horeysa dadka cilmiga leh ayaa loogu talagalay inay ka qayb qaataan oo khaasatan diinta garanaya marka intaa laga yimaado dadka ka hadlay oo kooban oo social media kaga hadlayaana micnahooda dhan waxay kusoo aruuriyeen hadda waxaan maleynayaa muddo laga joogo malaha Ramadaan may dhalan markuu bilaabanaya dagaalkaasi daaroodisim iyo isaaqisim iyo hartisim iyo maxaan ku rahdaa qabyaalad mooyaane wax kale meesha kama aysan jirin iyo anaga reer hebel caydhsanay anaga reer hebel caydhinay dadkii oo dhan waxay kusoo wada ururtay sheekadoodii anaga haddaan reer hebel waan ka adagnay war horta waxaan runta idinku sheegayaa khaliif warsamo walaal aad iyo aad baan kusoo dhaweynaya walaal horta xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay oo dadku ay doonayaan inay ka indha qarsadaan wax la yiraahdo daaroodisim ma jiro wax la yiraahdo hartisim ma jiro wax la yiraahdo isaaqisam ma jiro qabyaalad wax la yiraahdaa meesha kama shaqeynayso xaqiiqada dhabta ah marka la isku yimaado waxa isleenayaa ma aha qabyaalad ma aha qabiil ma aha waxa ishaya waxaad arkaysaa qolo kastaba hadda marka leedihiin saaq baa kusoo duulay harti kusoo duulay iyo hartiba xaq dirira oo maxaan ku radaa xaq wax iskaga dhicinaya waxba kama jiraan xaq dirir wax la yiraahdaana ma jiro maxaan ku radaa saaq soo duulayna ma jiro saaqdada waxaad arkaysaa ku haya muuse biixi waxa uu wada waa wax qaldan oo ka soo horka jeedo oo ka hadlaya oo ka xumaanaya marka dadka si qaldan dadka wax u fahansiinaya marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u sheego waxa meesha ka socda wax qabiil uu shaqo ku leeyahay maaha ma doonayo marka inaan aad iyo aad ugu fogaado labada nin ee maxaan ku rahdaa dhibaatadan abuuraya ee cabdiweligaas iyo muuse midkoodna ummadan wanaag uma uusan gelin wanaagna hore uguma samayn haddana kama sugayno haddana ma wadaan
waa wax calooshu ku rugmanayso markaad aragto idinkana waad aragteen annagana waan aragnay social media waxa lagu dhex wadaa waa wiilal yaryar oo macaluul iyo baahi markoodii horeba u dhammaaday oo aan mushahar qaadanaynin beerkiiyo boggu isku dhegan yahay markaad wejiyadooda aragtaad ka naxayso oo baadiyaha iyo tuulooyinka laga soo daadgureeyey oo xamaaliyaal ah oo la yiri islaaya oo waxay isku dilayaan aan garanaynin sababta uu naftiisa ku weynayana aan garanaynin sababta uu walaalkiisa u dilayana aanan garanaynin ciddii caqliga u ahayd ee wuxu sheegi lahaydna ay afka ka koolaysatay oo aysan waxba u sheegaynin labada nin ee marka isku dirayo isku jabinaya labada nin ee isku jabinaya waa muuse biixi oo laga dhaadhiciyey haddii aad dagaal wax ku soo haddii horaa nabad wax loogu waayay dagaal baad waxaad ku helaysaa ictiraaf wax la yidhaahdo iyo cabdiweligaas oo doorashadiisii qarka ay usoo saaran tahay oo raba inuu yidhaahdo walaalkay maxaanku idhahdaa walaalkay dhulbahanta walaalkay baan doonayaa inaan xaqiisa usoo dhiciyo walaalkay tolaa cil baa la baday waxaan rabaa walaalkay inaan dhulkiisa waa hadda waxay socotaa dagaal dhabka ama aha wuxuu rabaa marka 2 wiig marka la joogo inuu 2 hoobiyo rido 2 hooyo lagu dilo caruur iyo maato lagu barakiciyo hooyooyin lagu laayo lagu gablamiyo ka bacdina uu ku wado tabtaa oo u yiraahdo in dagaal buu ku jiraa dalku in dal baan xoreynayaa hadda dagaal dal ku jira doorasho kama dhici kartee waqtiga hala iigu daro ujeedadiisa dhan intaas weeyaan iyo customka ku yaala magaalada yar ee tuulada yar ee tukaraq la yiraahdo tukaraq waxa ka furan custom yar oo la yiraahdo meesha lagaga kala qaato canshuuraha baabuurta isaga kala gooshto Soomaaliya waqooyi iyo koonfur baabuurta halka marta haday waqooyi ka imaatay haday koonfur ka timaado had boqoladii xirada yar xirata ayaa lacagta ka gurata customka yar bay marka u dhimanayaan iyo hunguriga yar labada qolo oo ay dadka meeshaasi degan ee tuulooyinka degan ee baadiyaha degan ee xoolo dhaqatada ah hooyooyinka ah rafaadsan ayay waxay rabaan 24 saac markii 2 maalin la joogo in 4 hoobiyo isku ridaan hooyo lagu dilo lagu gablamiyo ilmo lagu laayo xoolo lagu xansuuqo lagu barakiciyo isagana ujeedkiisa dhan waxa waaye kursigaas aad ku sii fadhidid dadkuna maxay leeyihiin labada dhinac markaad warkooda dhigaysato inta xumaha ka waranta xaggan haddaad fiiriso barigan waxay ku leeyihiin hadda dhulbahanta isaga labada dhinacba ku go'ahaya yaa mii waalan yahay labada dhanba xaggii xaggaba isaga ku dhimanaya walaalkay ciil buu qabaa wayna u heeliyaa haddaad xagga waqooyiga dhigaystan waxay ku leeyihiin hadbee lafa gel isaga la isku jabiyaa xaggan ayaga ka jabay xaggan ayaga ka jabay isku jabeen buu ku leeyahay kan le walaalkay baan u heelinayaana waxa maanta ku soo baxay waxa weeyaan gabaygii ahaa baadida nin baa kula daydaya daala ka badan oo aan doonahayn inaad heshana daayin abidka dadkuna moodi dul wada dhashaan wuxuu dahsoonayne dalla ma laha aakhira haddii loo kitaabdayo waa gabaygii cali dhuuxaadan maya qamaan bulxan iyo cali dhuuxaadan ay isugu gabeeyeen dalla ma laha aakhiro ninka maanta ku haya tolkay baan u heelinayaa hartisin baan u ordayaa daaroodisin baan u ordayaa cid baan u heelinayaa wax aad u heelinaysaa ma jirto hooyo Soomaaliyeed bad gablaminaysaa aabba Soomaaliyeed bad gablaminaysaa caruur yaryar arday xoolo dhaqato bad barakicinaysaa dadka halka marka ku balanbalay ee lagu barakicinayo dhibku ma aha mid maanta kaliyaata ku dhacaya maaha wuxuu soo socday kasoo bilow aasaaskii Somaliland iyo Puntland kasoo bilowday ilaa maanta waa lagu hardamaya ilaa maanta hooyaya lagu goblaminaya Puntland iyo Somaliland waa labada maamul ee ugu qaraabashataga badan ugu qaraabka badan ee meel kasta adduunyada koobka yar la wareegaya koobka ay la wareegayaan waxa ay ku soo qaataan Hargeysa iyo ma soo dhaafto Boosaaso Hargeysa iyo ma soo dhaafto iyo Garowe ma soo kala dhaafaan magaca lagu qaadanayo waa deegaanadan dadkii lahaa lagu duqeynayo habeen iyo maalin lama xukumo cidna ma xukunto dadka meesha jooga qalbigooda hadda jixid calanka Soomaaliya ka soo dhaxbaxaya laas canood dhexdeeda calanka Soomaaliyeed baa lagu barkan yahay marada Puntland ka taagana lagama ogola marada Somaliland ka taagana lagama ogola dadka marka laga yimaado labada koone labada qabiil ee majeerteen iyo marka laga yimaado isaaq runtiina aniga
ma aaminsani isaaq iyo majeerteen laakiin dadka ku shaqaynaya fikirka gaas iyo muuse biixi labada qof dadka kala aaminsan labadaa qof waayo qabiil dhan ma noqon karo wax uu ka siman yahay waxa meesha ka socda qabiil kama sinna isaaqna kama sinna majeerteena kama sinna waxa meesha ka socda sheekh iyo shariifna waa ka buuxaa mana aha dad doonaya dagaal iyo dhiig in la daadiyo laakiinse labadaa nin dadka kala taageersan ee rufiyaanka u wada ah ujeedada ay meeshaasi ka leeyihiin iyo dadkan balambalkooda meeshaas lagu baabi'inayo ma aha horta waxaan wax soo bilowday shalay baa tukaraq la qabsaday iyo daraad baa laysku haystay halkanay xabadashal ka dhacisa ma aha waxay soo bilaabantay aasaaskii labadaasi maamul ilaa maalinkay bilowdeen ilaa maanta halkaasi way ka dhacaysay dhibaatadu dadka meeshaas ku nool ceel biyaa looma qodo waddo looma jeexo baraag looma qodin xawimo kiishraashin aan lama gaadhsiiyo iska daa wax kale hoobiyaa loogu daraa iyo dil iyo barakac everyday dadku marka ka baxsan labadaasi cidood aan sheegayo ee Soomaali weyn waxay ku oranayaan reerka meesha degan miyay sixran yihiin miyaa la sixray mise aqoonyahan male maxaa ka siya dadka labadoodiina waxay ku leeyihiin qoladana waxay leeyihiin hadday xeradaas waagii aanu maxaan ku rahdaa nala gumaysanaya naloo jeexay kuwana waxay leeyihiin harti baan isla kaaya yiraahdaan waanu isla dhalana mid naf u hayaana ma jiro harti wax la yiraahdaana ma jiro xero ingiriis jeexay wax la yiraahdaana ma jiro qolo walba ilaahay meel buu ku abuuray meeshaasay leedahay waxaan rabaa markayna u soo noqdo dadka meesha ku nool ee ummadii kale oo dhan ay la yaaban tahay oo ay leeyihiin dadku miyay la sixray miyay biyo falbey cabeen aqoonyahan male miyaa wadadan wax baran miyaa maya waxaasoo dhami ma jira aqoonyahan male haddii ay noqoto dadka ka dhashay qaar baa waxay yihiin kuwii xilalka ugu sarreeyay dalka ka soo qabtay xilka ugu sarreeyay xilka ku xigay ra'iisul wasaarenimo soo qabtay iska daa Soomaalinimo inta ay ka baxeen ay adduun weynaha kaleeto waxa ay ka hayaan xilal waxa ka mid ah Cali Ciise Cabdi oo bangiga adduunka bariga Afrika u qaabilsan ayaa reerkan aad leediin aqoonyahan malaha miyaa ka dhashay Aamina Maxamed oo wasiirka arrimaha dibadda Kenya ka ayaa ka dhalatay hadday magac iyo mansab kale iyo aqoon kale noqotana Cabdi Bilaa Cabdi baa ka dhashay ummad marka aqoonyahankeedii wadaadaha hadday noqotana lascaanad oo meesha u wadaadada badan afkaana u wada xidhan hal shiikho xitaa ka wacdinaya waxa meesha ka dhacaya oo ka hadlaya ma jiro aqoontii halka kaga kaalay marka waxaad isleedihiin marka maxaa soo harday biyo falbey cabeen haddaba way waalan yihiin ayagiiba xagga iyo xaggana iyagiiba kasoo duulaya xaggana iyagiiba kasoo duulaya dadkay barakicinayaan waa dadkoodii caruurahoodii iyo maxastoodii bay leynayaan kuwa halkan hoobiyaha kasoo ridayaan waa iyaga kuwa xagga kale hoobiyaha kasoo ridayaan waa iyaga maxaa ka khaldan dhexda dadka lagu leynayo ee masaakiinta ana waa dadkoodii waa caruurtoodii waa hooyooyinkoodii waa ayeeyooyinkoodii maxaa ka siiya marka dhibka haystaa waa hal xabo weeyaan dhibka haysta inta aanan u gudagelin marka in yar aan idhaahdo dhinacan waxaan rabaa dadka lagu borogaraamiyey xuduud la soo xidhanayo ayaa waxaan rabaa wax yar inaan ka idhaahdo muuse biixi iyo maxaan ku idhahdaa Faysal Cali Waraabe habeen iyo maalin social media waxay la taagan yihiin xuduudii uu noo soo xidhay Ingiriis abwaankii muxuu suugaanta ku yiri doqon baa habowsano weligeed halowsane sida xoolihiiba xirana lagu hooya xoolaha marka xerada loo oodo oo lagu xereeyo kama baxaan afkana waa laga oodaa ingiriis shalay wuu ku qabsaday adiga oo xoolaha dhaqanaya xoola raacata markuu ku qabsadayna xero ayuu kugu hoystay xeradii kugu hoystay waad ka dhiidhido waad iska kiciso ingiriis wuu kaa tagay caqliga ku siinaya marka muxuu yahay maanta inaad tiraado xeradii uu ingiriisku ugu hooyay ayaan rabaa inaan ku dhaqmado xoolaha maxaad dhaantaa markaad leedahay ingiriiska xeradii uu ii soo jeexay ayaan rabaa inaan ka dhigto oo maanta aan wax ku qaybsado ilaahay baa Soomaali dhulkan ku beeray ilaahay baana qolo walba meesha ay ku dhalatay ku faafiyay qolo marka kuma xad gudbi karto xaqiiqda marka loo yimaado qolo ku xad gudbi kartaa ma jirto ujeedada kale ee maanta labadan nin iyo inta ku fikirka ah ay ku hal qabsadaan waxa weeyaan waabana la xansuuqay waabana la laayay hal cilad bay jirta marka ay Soomaalidu leedahay halka cilada Soomaalidu leedahay waxay tahay isma weydiiso sabab wax baa dhacay bay kulaada laakiin sababkan weydiinayso ilma yar markuu soo ooyo oo ilmaha la soo dilo kuma oranayo alla waa lay dilay laguma oranayo maxaa lagu sabab ma jirto oo yaa ku dilay muxuu ku dilay
waxaad arkaysaa ciyaalka yarar qurbaha ku dhashay markaad tiraahdo waxaa samey waay haddaad iska daa waxa ugu fudud caanaha hoo cab waay orod dharka iska bixi waay waa inaad tiraahdo dharka wuu kaa wasaqoobaya orod iska bixi okay buu ku oranayaa markaas hooyooyinka qurbaha ilmaha ku dhalay ilmaha yarar qurba jooga markay yidhaahdaan waay waxay u arkaan inay ceeb tahay iyo inay liidayaan iyo inay amar diido samaynayaan laakiin maaha waay waa kelmad loo baahan yahay inay dadka Soomaaliyeed isweydiiyaan markay leeyihiin marka dadka gobolada waqooyi degan qayb ka mid ah qabiilka waliba si kala qayb